two Iranian ayatollahs have issued fatwas against Donald Trump. What does that mean exactly, and what do you think of it? saaxiibayaal galab wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqaynta siyaasadda caalamka. barnaamijkan galabta waxa aynu kusoo qaadan doonaa waraysi naadir ah oo uu bixiyey madaxweynaha dalka Iiraan. waraysigaasina waxa uu kaga hadlay guud ahaan xaaladda bariga dhexe, dagaalkii ugu dambeeyay ee dalkan Iiraan uu la galay Israa'iil iyo sidoo kale weerarkii diyaaradaha Mareykanka ay ku duqeeyeen saddex ka mid ah xarumihii warshadaha nuclear-ka ee dalkaasi Iiraan. waraysigan waxaa madaxweynaha dalka Iiraan la yeeshay wariyaha Amerikaanka ee Carlson yiraahdo, waxaana waraysigaasi uu socday 28 daqiiqo, laakiin maadaama waraysiga uu aad u dheer yahay waxa aynu kusoo qaadanay saddex su'aal oo muhiim ahaa oo madaxweynaha la weydiiyey iyo jawaabo la yaab lahaa oo dabcan su'aalahaasi uu ka bixiyey. saddexdaasi su'aal ee la weydiiyey dabcan waxaa ka mid ahaa in laba ka mid ah hogaamiyaasha ugu sarreeya ee dalkaasi Iiraan ay soo saareen fadwo ka dhan ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo ku aadan in madaxweynaha Donald Trump la qaarijiyo ama la beegsado. waxaa la weydiiyey marka in sharaxaad uu ka bixiyo waxa ay fadwadaasi ay ku saabsanayd. su-aasha labaad ee aan barnaamijkan kusoo qaadanayno ee xiisaha badan ee madaxweynaha la weydiiyey waxa ay ahayd in Iiraan weligeed ay taageertay in la dilo madaxweynaha dalka Mareykanka. ogow Trump dhowr jeer ayuu ka badbaaday isku dayo dil, waxaana qaarkood horey loogu eedeeyey Iiraan inay ka dambeyso. su-aasha saddexaad ee yaabka lahaa ee la weydiiyey madaxweynaha waxa uu ahaa in dabcan ay jiraan dad u dhashay wadanka Iiraan oo sirdoon ah oo ku sugan wadanka Mareykanka, kuwaas oo u shaqeynaya dowladda Iiraan isla markaana shaqooyin basaasnimo ah ka dhex wada dalkaasi Mareykanka. marka waxaa la weydiiyey ma jiraan dadkaasi dabcan Mareykanka jooga oo sirdoon ah oo u shaqeynaya dalka Iiraan. saddexdaasi su'aal ayaan dabcan hadda barnaamijkan qaybtan kusoo qaadan doonaa. qaybaha kale ee barnaamijkeena caawa ilaa iyo berri dabcan su'aalaha kale ee muhiimka ah ee madaxweynahan la weydiiyey ayaanu barnaamijkan kusoo qaadan doonaa. daawadayaal, maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 8 bisha July 2025. saddexdaasi su'aal ee muhiimka ah ee madaxweynaha dalka Iiraan waraysi naadir ah ahaana waraysigii ugu horreeyay oo uu bixiyey tan iyo markii Iiraan ay dagaal la gashay Mareykanka iyo Israa'iil ayaa uun ahaa. aad baa waraysigan xiiso badan u lahaa dalalka Carabta, kuwa Khaliijka, Mareykanka laftirkiisu aad baa looga daawaday. waxaa kaloo yaab leh in waraysigan luqadda afka Carabiga ah iyo luqadda Persianka ee looga hadlo dalal badan oo Iiraan ay ka mid tahay dabcan lagu turjumay. xitaa luqado kale ayaa la leeyahay dhowaan waa lagu turjumi doonaa. waxaana ka garan kartaa sida waraysigan ay u xiiseynayaan mujtamaca caalamka iyo sidoo kale saxaafadda adduunka. aad baa loo falanqeynayaa, siyaasiyiin baa dabcan falanqeyn ku sameynaya jawaabihii madaxweynaha dalkaasi Iiraan uu bixiyey. marka hore waxa aynu ku bilaabaynaa su'aashii madaxweynaha la weydiiyey ee ahayd in laba ka tirsan hogaamiyaasha ugu sarreeya ee dalkaasi Iiraan ee ayatullahyaasha la yiraahdo inay soo saareen fadwo ka dhan ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. waxaa la weydiiyey bal waxa ay ka dhigan tahay fadwadaasi la soo saaray iyo in weligeed Iiraan ay isku dayday inay qaarijiso ama ay disho madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, iyo weliba waxa dabcan fadwadaasi la xiriirta in dhammaan sharaxaad uu ka bixiyo. To the best of my knowledge, they have not issued decrees or fatwas against any individual or against Donald Trump. ugu horreynba madaxweynaha waxa uu yiri ogaanteyda iyo waxaan ka warqabo dabcan ma jirto buu yiri fadwo la soo saaray oo ka dhan ah madaxweynaha dalka Mareykanka ama shakhsiya dabcan Trump uu ku jiro. marka ugu horeysa wuxuu yiri fadwadaasi uu soo saaray hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalkaas Iiraan runtii waxa loola jeeday buu yiri fadwo lagu cambaareynayay caayda iyo sidoo kale waa caayda ka dhana diinta iyo shakhsiyaadka dalkaasi hogaaminaya. waxaa kaloo uu sheegay in fadwadaasi dabcan loola jeeday in aan loo dulqaadan karin, aanan la aqbali karin dabcan weerarka tooska ah ee Trump iyo shakhsiyaadka ka imanaya ka dhan ah muwaadiniinta iyo dalka wadankaasi Iiraan. waxaan ku xaqiijin karaa buu yiri in fadwadaasi sidoo kale loola jeeday in dabcan la tixgelinayo ama loo tixgelinayo hadal kasta oo adag iyo weliba hanjabaad kasta oo timid oo ka timaada Mareykanka ama sidoo kale shakhsiyaad kale in loo arki doono mid dhab ah Iiraan dhab ahaan ay u qaadan doonto isla markaana aysan u dul qaadan karin. marka wariyaha ayaa marka la weydiiyey waxa uu yiri
weligeed Iran ma isku dayday inay taageerto isku dayo lagu qaarijinayo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump madaxweynaha ayaa mar kale soo galay oo waxa uu yiri xaqiiqdii arrimahaas oo dhan waxay yihiin waxyaalo uu boonbooninayo ra'iisul wasaaraha Israel Netanyahu si uu dabcan ugu qanciyo Mareykanka iyo shakhsiyaadka iyo muwaadiniinta kale Amerikaanka inay aaminaan in Iran dabcan ay beegsanayso madaxweynaha dalka Mareykanka iyo sidoo kale inay dabcan ay weerarayso shakhsiyaad Amerikaana Netanyahu ayaa had iyo jeer waxa uu dabcan ajandihiisa uu yahayba inuu Mareykanka uu ku soo jiido dagaal aan weligii dhamaad lahayn oo lala galo Iran iyo waliba in xasilooni darro laga abuuro guud ahaan qaaradan guud ahaan wuxuu yiri gobolkan bariga dhexe inta kadib ayaa wariyaha mar kale waxa uu weydiiyay su'aal kale oo yaab lahayd oo ku saabsanayd ma jirtaa buu yiri wax loo yaqaano sleeper cells oo dalka Mareykanka jooga ama shakhsiyaad dabcan active ah oo sirdoon ah iyo kuwan active ahayn oo dabcan jooga gudaha wadanka Mareykanka oo u la shaqeynaya dalka Iran isla markaana macluumaad xagga sirdoonka u ururinaya guud ahaan wariyaha waxa uu yiri gobolka haddii aad aragto waxa jooga dad fara badan oo ballaaran oo Iiraaniina kuwaasoo ku nool wadanka Mareykanka qaar waxay yiraahdeen buu yiri anoo xiganaya waxaanu nahay sirdoon qaarkood waxay yiraahdeen argagixiso ayaanu nahay oo dabcan ka amar qaata dowladda ee wadanka Iran waxaa kaloo wariyaha uu yiri statementiyo ama war-saxaafadeedyo Mareykanka dabcan laga soo saaray iyo kuwa idinka soo saarteenba intaba waxay ka hadlayaan falal dabcan amni darro ah oo Mareykanka ka dhacaya iyo waxyaalo kale marka wariyaha markii su'aashaas uu dhameystay ayaa madaxweynaha uu soo galay madaxweynaha waxa uu yiri waxyaalahan hadda ay sheegaysid waa markii ugu horeysay oo aan dabcan adiga aan ka maqlayo iyo shakhsiyaad kale Iraniintu dabcan waxa lagu yaqaanaa cilmigayga inta aqoonsanahay dad sayniska iyo cilmiga ku wanaagsan isla markaana dad ilbaxa weliga ma aragtay buu yiri dad Iiraaniin ah oo dabcan dhacdooyin amni darro ah ka shaqeynaya waxaa kaloo madaxweynaha uu yiri weliga ma aragtay wax iyaga ka dhan ah ama in dabcan dhibaatooyin Mareykanka ay ka sameynayaan aragtideeda waxa dad sheegayso su'aashaasi waxaan u qaadanayaa buu yiri wax propaganda ah oo Iiraaniinta dabcan aysan ba awood u lahayn ama aysan ba rabinba inay sameeyaan ama amni darro dabcan ay ka shaqeeyaan marka gabi ahaan waxa dhihi karaa waxa uu yiri waxaas wax ka jira malahan Mareykankana nooma joogaan shakhsiyaad sirdoon ah oo dabcan Iiraan u shaqeynaya ama argagixiso Mareykanka ku tilmaamo ama wax kale ku sheego ma jiraan gabi ahaantooda ayaa uu yiri Iiraaniintu waxa uu yiri waa dad dabcan nabadda jecel isla markaana wada noolaanshaha dadka kala diimaha kala dhaqanka ah nabadda in lagu wada joogana aad u jecel waxa kaloo uu sheegay in dabcan dadka go'aanada sameeya ee Amerikaanka ah dabcan markas lagu cabsi geliyo in Iiraaniintu ay weerar ay ku soo yihiin dalka Mareykanka Israel ba arrimahaas ka shaqeynaysa diinteenu dabcan nooma ogolaanayso inaan dhib aynu mataqaana dad kale aan u geysano ama Amerikaanka ahaadaano ama dad kale ha ahaadaano Mareykanka dabcan waxa uu ku lug yeeshay dagaallo dhacay isla markaana bariga dhexe ka dhacay waana ognahay waxaasoo dhan gaar ahaan dagaaladii ugu dambeeyay Israel aynu la galnay oo dagaalka lagu soo jiiday laakiin waxaan ku xaqiijinayaa gabi ahaanba inaanu jirin dabcan shakhsiyaad sirdoon aynu ugu dirsanay oo Mareykanka jooga su'aalaha saddexda ah ayaa ugu muhiimsanaa dabcan kuwa aan barnaamijka maanta ku soo qaadanayno laakiin guud ahaan marka su'aalahan madaxweynaha uu ka jawaabay aynu si mid u eegno marka jawaabaha laga soo tago arinta koowaad fadwada haddii aynu fiirino markii dagaalada ay socdeen oo duqeymaha labada dhinac ay isweydaarsanayeen waxaa jiray war-saxaafadeed adag oo laga soo saaray xafiiska Ayatollah Ali Khamenei waxaa jiray laftirkiina aad ogtihiin in dabcan Ayatollah uu magacaabay shakhsiyaad isaga bedeli doona haddii dagaalkaasi uu ku geeriyoodo sidoo kale waxaa jiray marka fadwooyin la sheegay haddii hogaamiyaha la dilo iyagana inay u argudaan oo dabcan ay duqeeyaan ama ay beegsadaan ra'iisul wasaaraha Israel ama Trump ama qof kale oo dabcan u dhigma taasina Iran dabcan waa ay ka wada simnayd dhamaantood arinta ku saabsan in weligeed Iran ay taageertay dal kale ama koox kale ama shakhsiyaad kale oo beegsan kara ama qaarijin kara Trump waxaa jiray Trump mar uu dhaawacmayay oo doorashadii ay jirtay oo la tooganayay waxaa jiray marar kale oo dabcan la isku dayay in la qaarijiyo qaarijintaas oo dhan dabcan waxaa la sheegay qaarkood in ay xiriir la lahaayeen dalka Iran dabcan awoodda marka la fiiriyo xagga sirdoonka ee Mareykanka Israel iyo dabcan meelo kala duwan oo caalamka gaar ahaan dalalka Carabta aad bay u xooggan yihiin inkasta oo dowladuhu iyo hogaamiyaasha dalalka caalamka aysan si cad u sheegin
ama u sheegayninba in sirdoon uu dal kale u joogo haddana waxaa la leeyahay arrintan waxay iftiiminaysaa sida Iiraan awood ay u leedahay iyo waxa Ameerikaanka iyo warbaahintooda iyo sidoo kale shakhsiyaadka siyaasiyiinta Ameerikaanka ay ka aaminsan yihiin dalkan Iiraan dhab ahaantii waa wadan awood badan marka loo fiiriyo xagga teknolojiyadda awoodda xagga militariga wax soo saarka dagaaladii hadda u dambeeyay ayaana dabcan lagu arkay arinta kale ee dabcan yaabka lahayd ee la weydiiyay waxay ahayd arinta ku saabsan waxaan dabcan dagaaladii hadda soo dhamaaday iyo guulihii dabcan Iiraan ay gaartay wuxuu yiri annaga weerar baan lagu soo qaaday difaac baan u galnay ugu dambeyntiina waan guulaysanay taasina waxa ay kor u qaaday sumcadda iyo sidoo kale wadankan Iiraan awoodda uu u lahaan karo mar kale inuu iska difaaco weerar kale oo Mareykanka iyo xulafadiisa Israa'iil uga yimaada daawadayaal barnaamijkan maanta waxaynu ku soo gudbinaynay waraysi 28 daqiiqo socday oo wariyaha caanka ah ee Tucker Carlson uu la yeeshay madaxweynaha dalka Iiraan Mas'uud Pezeshkian waxaana waraysigaasi guud ahaan uu ka hadlayay xaaladda bariga dhexe iyo waliba arrimaha Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka iyo Israa'iil iyo duqeymihii xarumaha nuclearka waraysiga maadaama uu aad u dheeraa waxaan ka soo qaadanay 3 su'aal oo muhiim ah oo madaxweynaha la weydiiyay oo mid ay kamid ahayd dabcan ama midda koowaad ay ahayd in Iiraan hogaamiyaasheeda ugu sarreeya ee ayatullahyaasha la yiraahdo inay soo saareen fadwo lagu qaarijinayo madaxweynaha dalka Mareykanka iyo sidoo kale in Iiraan weligeed ay taageertay dawlado kale ama shakhsiyaad kale in ay beegsadaan oo ay qaarijiyaan Trump iyo in sirdoon dabcan gudaha wadanka Mareykanka ay u joogaan Iiraan 3 su'aal jawaabihii uu ka bixiyay madaxweynaha ayaana sharaxaad ka bixinaynay qaybaha kale ee waraysigan barnaamijyada kale ayaanu uga hadli doonaa si aysan ku dhaafin fadlan subscribe saaro channelkan ula soco aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin